cunuga quraanka dhiganaya dugsiga quraanka dhiganaya ana ilmo ku tijaabiyay ana ilmahayga quraan u dhigay dugsi alif waxmale waxaan isku dayay inay waxay baranayaan fahmaan alif waxmala ba anagu iska aqaan alif waxmale ba aska maya maaha alif waxmalaha ba hoos hal kula sabah ma fiirina wali hadaan fiirin waxa ma ahan wajin hadii alif waxmale ba si loo wada alifka dambe maxay alifka dambe u yahay hadaan fahmin alif waxmalaha qofka markaas alif waxmala waa bartay waxmalaha ba hoos ku hal leh hal kula daan ta korku laba leh waa laga yaabaa dad badan oo hadda waqtigan maraya in erayadaas wali aysan u bixin lama fiirin waligoodii sasma hal abuurnimada aawo maxaan horta aan wax soo fahamno marka wax fahamno waxa sameyn karnaa ثانيا marka kala fiiri dariiqada aan wax u raadinayna qaldayna marka rabnaa hal abuur sameeyso dariiqada aan wax u baarayso dariiqa ka duwan dariiqadooda waa qof idinkeedii kamida hadii la yiraahdo waxa ii sheegtaa dhowr aad u fiirso warkaas waxa ii sheegtaa wiilkaas dhahayaa balo fiiriya inka alqadiga ha su'aalan ku weydiinaya ina boosisana isku day waxa ii sheegtaa shan shay oo midabkooda cadaan yahay aad u kaadiye fadlan arday u daaya caana bakun qof kale u daaya hayawat dhimale waxba la tiriimu jeedaan fiiriya marka raba inaan shay raadiyo cadaanka ka dhamaanaya adoo ilka cataagaya oo ilkaaga u jeedin oo indhahaaga cad aan u jeedin oo cididaada aan u jeedin meelo kala raadinayna Soomaalitaan صح ما هو halkee ka bilaabayna marka wax raadinayna waa qaybinayna day marka hore si aad wax u hagaajiso gumeystaha waxay dhahan qayb oo xukun anaga waa qaybinayna saa u maamulno waxa leenahay maxaa korkay ku jira ilkaha cidiyaha indhaha xagga dhig cirka maxaa yaala dayaxa qoraxda xidigaha xagga dhig maxaa cuntada ku jira cusbada caanaha burka xagga dhig hore ka boobsiinaysa laakiin marka taa tiraahdo ilka cad baad ku raadinaysaa wax cadaan ah dariiqada wax u baarayso lafteedu muhiim waa sabab hadii wax ka dhumaan nin baa fura ka lumay asoo meel habeen ka raadinaya mid baa u yimid kiiba la raadiyay cabaan markay daaleen waa la waayay wax ku kaaga dhumo yiri wuxuu yiri halkaas uu iga dhumay oo maxaa meeshaan uga raadinaynaa meeshaan iftiin la kula xagaas mugdi wahay marka afkeena waa mugdi meelahaas kala iftiin lamiya shayga aan raadinayna anaga korkeena horta specific soo ururay wax kadib hal u raadi markaas wax heli kartaa hadii wax weyn hal mar raadiso maxaa meel ka bilow maxaa laga bilaabaa meel fudud ilaa meel adag meel basiida ilaa meel cusub ka raadi hada marka iskoolka dhiganaysan ama jaamacad waxa dhigan darsi adag ma jiro ana waligii ma arag darsi adag darsigaas waa adag yahay waa qalad laakiin mid aad dhihi kartaa wuu cusub yahay waa igu cusub yahay waa cusub yahay waa sax laakiin waa adag yahay ma jiro wuu cusub yahay marka barato adag buu ku biiraa masku kale marka wax cusub la baahan wax adag ma jiraan haddaan rabto inaan wax hal abuuro qof inuu wax ka fakaraa shirkad ku taala Japan waxa baakade qaada qasacya ku jira caana booray waxaas qasacyadaas marka qaarkood qasacyo waxa gudba aan waxba ku jirin ala raraa dacwa ka timid qasacyo badan oo la gudbiyay waa la fakiray injineer loo yeer qaar waxay dhaheen meesha laga rarayo hal la saaro baakadaha hor agteeda hal dhiga raajadaas markay ku dhufato hal laga arkay inay wax ku jiraan in kale shaqa culus qarash la geliyay nin shaqaalaha kamid ah wuxuu yiri maxaa raajo lagu falaa meesha agteeda marawaxad hal dhigo marawaxadaas kii wax ku jirana waa gudba baakada kalena waa dhacaysa wax fudud baa wax waa weyn raadinayna